السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا وعنا ونكسن داوديال meel walba aad joogtaan iyo si walba aad noo maqlaysaan kusoo dhawaada war waxaan daliyo dibadba idinka aynoon halkan idinku soo gudbin doona haddii ay yiraahdo qodobada wararkeena ugu doorana waxaa ka mid ah dagaalada ka socda dalka Itoobiya iyo meelaha ay ku dambeeyeen ayaa warkeena kaga bogan doontaan maamulka deegaanka Tigreega ayaa sheegay ciidamada Eritrea in ay ka wadaan dagaalo waaweyn waqooyiga deegaanka Tigreega maamulka deegaanka Axmaarada ayaa shaaciyay in hay'adaha dawliga ah ee deegaankaasi in ay si rasmi ah u shaqo bilaabeen waxaana hay'adaha dawliga la kala diray tan iyo intii ay soo galeen waqtiyadii ay soo galeen xoogaa TPLF deegaanka Axmaarada wuxuuna deegaankaasi ku jiray xaalad degdeg ah oo lagaga bixinayo ama lagu ciribtirayo xoogaa TPLF Amnesty International ayaa sheegtay dadka ka soo jeeda qowmiyadda Tigreega ee deegaan galbeedka Tigreega in ay la kulmeen tacadiyo kala duwan waxayna sheegeen in tacadiyadaasi ay geysteen ciidamada Axmaarada waa ciidamada deegaanka Axmaarada ciidanka badda dalka Mareykankana waxay sheegeen in ay gacanta ku dhigeen markab weyn oo laga leeyahay dalka Iran oo waday hub aad u fara badan hubkaasi meesha loo baday iyo cidda lahayd ayaad warkeena kaga bogan doontaan dowladda Japan ayaa Ethiopia ugu deeqday 12 milyan iyo 400 oo dollar waxayna dowladda Japan ay sheegtay in ay sii wadi doonto garab istaaga iyo caawinta dadka ku waxyeeloobay dhibaataduba ay saameysay dalka Itoobiya waa shacabka dalka Itoobiya qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaad warkeena kaga bogan doontaan daawadayaal waxaan si qadarin iyo xushmad leh idinka codsanaynaa haddii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe saar like share tan raaciso u gaaro saaxiibadana kaleeto mahadsanidin aan ku bilaabay dagaalada ka socda dalka Itoobiya oo muddo socday ayaa u muuqda mid hadda sidii hore ka tabaryar isla markaana u socda si goosgoosa iyadoo xogaga TPLF ay ka baxeen deegaamadii ay ka wadeen dagaalada waa deegaanka Caanfarta iyo midka Axmaarada hase yeeshee tan iyo intii TPLF ay ka baxeen goobihii ay ka wadeen dagaalada waxaa socda dagaala goosgoos isla markaana ay kooxuhu kala sheeganayaan in aysan iyagu xasilooni lagu soo dhameeyay isla markaana afgarad lagu soo dhameeyay dagaalada muddada dheer qaatay ee dalka Itoobiya xooga TPLF ayaa sheegeen in ay iyagu iskaga baxeen deegaamadii ay dagaalada ka wadeen isla markaana ay doonayaan in dalka Itoobiya ama dhinacyada dagaaladu ay ka dhaxeeyaan lagu soo dhameeyo is-afgarad hase yeeshee wali ma dhicin wax iska afgarada oo laga gaaray dagaaladii ka socday halkaasi xooga TPLF ayaa sheegay in ay cid walba oo ku soo duushay shacabka Tigreega ay la kulmi doonaan ama ay ka dhaxli doonaan cawaaqib xumo isla markaana ay sii wadi doonaan iyaga dhinkooda dadaalada ay ku doonayaan inay iskaga caabiyaan dadka ay ku sheegeen inay doonayaan inay xasuuqaan xooga TPLF ama shacabka Tigreega barta Facebook qoraalaha ay soo dhigeen madaxda xooga TPLF ayaa waxay sheegeen in dagaalo ba'an ama dagaalo waaweyn ay ka socdaan waqooyiga gobolka Tigreega waxayna sheegeen dagaaladaasi inay soo qaadeen ciidamada Eritrea oo ay ku tilmaameen inay yihiin ciidamo galdaro weyn wada isla markaana shacabka gobolka Tigreega ku soo duulay oo daandaansi wada waxayna sheegeen in ay dagaaladii ugu dambeeyay ay iska caabin ku sameeyeen waxayna intaasi ku sii dareen warkooda inay sii wadayaan halganka ay kaga sifaynayaan ama ay ku difaacayaan shacabka gobolka Tigreega dhinaca kale dowladda war ka soo baxay ayaa waxaa lagu sheegay in aysan hadda diyaar u ahayn in ciidamada militariga dalka Itoobiya inay galaan gobolka Tigreega waxayna sheegeen in ciidamadu aysan amar buuxa u haysanin inay galaan gobolka Tigreega halka dhinaca kale Tigreega ay sheegeen in ciidamada dowladda federaalka ay soo galeen gobolka Tigreega ayna iska caabin ku sameeyeen ciidamada Tigreega ee ku sugnaa xuduudda waxayna sheegeen in aan marna ciidamada Tigreega aysan ogolaan doonin in ay soo galaan ciidamada dulmiga wada ee ka amar qaata Abiy Ahmed waasay hadalka u dhigeen maamulka deegaanka Axmaarada ayaa iyagana waxay sheegeen ama ay shaaciyeen in hay'adaha dawliga ah ee deegaankaasi ay si rasmi ah u bilaabeen shaqadoodii ayna ku soo laabteen hay'ad walba ama wasaarad walba goobihii ay ka talinaysay ee ay ka shaqeynaysay ayna adeegii ay bixin jirtay si rasmi ah ay u bilowday waxayna sheegeen in hay'adaha deegaanka Axmaarada ay ku howlan yihiin siday hay'ad walba ay u gudan lahayd waajibkooda
waxaa hay-adahan la kala diray waqtiyadii ay soo galeen xooga TPLF deegaanka Axmaarada, waxayna deegaanka Axmaaradu ay ku sheegeen inay tahay xaalad degdeg ah oo la geliyay deegaankaasi. hay-aduhuna ay tageen furimaha hore ee dagaalka si looga sifeeyo xooga Tigreega ee kusoo duulay shacabka deegaanka Axmaarada. deegaanka Axmaarada ayaa in muddo aba aan helin adeegyadii ay bixin jireen hay-adaha deegaanka Axmaarada waa wasaaradaha deegaanka Axmaarade, iyadoo hadda ay shaaciyeen in si rasmi ah ay hay-ad walba u bilowday shaqadeedii ay u haysay shacabka deegaanka Axmaarada. Amnesty International ayaa sheegtay dadka kasoo jeeda qowmiyadda Tigreega ee degan galbeedka Tigreega in ay la kulmeen tacadiyo kala duwan, waxayna sheegeen tacadiyadaasi inay geysteen ciidamada deegaanka Axmaarada iyo kuwa militariga dalka Itoobiya ee iskarabsanaya. waxayna sheegeen dad aad u fara badan oo u baxsanayay dhinaca Tigreega in la xasuuqay, qaarna loo taxaabay xabsiga, isla markaana ay weli beegsiga ama isir beegsiga ciidamada Axmaarada ay wadaan ee ay ku hayaan qowmiyadda Tigreega in ay weli sii socoto. waxayna sheegeen in international ayaa marar badan dowladdu waxay sheegtay in ay sameynayso qaabab aan loo baahnayn oo dhexdhexaad ahayn, isla markaana ay taageero u muujinayso kooxaha TPLF. dhinaca maamulka Axmaarada ayaa sidoo kale iyagana waxay sheegeen in Amnesty International falalka ay ku dhaqaaqday iyo wararka ay tabinayso ayn ahayn warar cadaalad ah, isla markaana ay yihiin warar dhinac u janjeera, loona baahan yahay in Amnesty ay dib iskugu laabato oo ay ka waantowdo waxa ay ka wado deegaanka Axmaarada iyo dhammaanba dalka Itoobiya. ciidanka badda ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in ay gacanta ku dhigeen markab weyn oo laga leeyahay dalka Iiraan, waxayna sheegeen in markabkaasi uu waday hub aad u fara badan oo loo waday Xuutiyiinta ka dagaalamaya dalka Yemen. dalka Mareykanka ayaa ama ciidamada Mareykanka waa ciidamada badda dalka Mareykanka ayaa waxay ku soo celiyeen in markabkaasi gacanta hadda lagu hayo, isla markaana uu siday hub aad u fara badan iyo saami kale oo military, waxayna sheegeen in sida ugu dhaqsiyaha badan la horgeyn doono sharciga. dowladda Japan ayaa Itoobiya ugu deeqday 12 milyan iyo 400 oo dollar, waxayna dowladda Japan marar badan ay ku soo celisay shacabka dalka Itoobiya inay u baahan yihiin in la garab istaago, waxayna qayladhaan u direen dhammaanba caalamka oo ay sheegeen in ay ku daydaan sida aan anagu u taageerayno dalka Itoobiya, ayna shacabka dalka Itoobiya u baahan yihiin garab istaag weyn in loo muujiyo. waxayna sheegeen in ka badan 24 milyan oo qof in ay dhibaatadu ay saameysay, ayna u baahan yihiin in kaalmo bini'aadanimo oo degdeg ah la gaarsiiyo. dowladda Japan ayaa marar badan ba dalka Itoobiya u sheegtay in ay diyaar u yihiin in ay garab istaagaan, ayna u fidinayaan hil iyo hooba ay garab taagan yihiin dadka ku waxyeeloobay dhibaataduba ay saameysay ee ku sugan dalka Itoobiya. waxayna kaalmadii ugu horeysay hadda ay soo gaarsiisay dalka Itoobiya ama ay ugu yaboohdayba dalka Itoobiya 12 milyan iyo 400 oo dollar. kaleta dowladda Itoobiya ayaa mahadcelin u dirtay dalka Japan, waxayna sheegtay in ay uga mahad celinayso deeqda walaaltinimo ee ay ugu yaboohday dalka Itoobiya. daawadayaal war waxaan dalayaa dibadda idinka haynay, intaasi ayuu ku egyahay warkan warka xiga. intaan ka gaadhayna waxaan idinka tagaynaa guul.